إن الله وإنا إليه راجعون waxaan tacsirintii tiiraanya leh oo murugo leh u diraya dhammaan dadkii ku waxyeeloobay ama ku xasuuqmay qaraxii ka dhacay xamar 28 bisha 12 2019 magaalada Muqdisho goobta loo yaqaan Ex Control afkooye runtii wuxuu ahaa qaraxii saddexaad ee ugu dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato badnaa marka laga yimaado qaraxii ka dhacay hargaha ee Saama iyo qaraxii Soobe runtii wuxuu ahaa qaraxii saddexaad ee xamar ka dhaca kii ugu qasaaraha badnaa ama ugu dhibta badnaa ugu horeyn waxaan Ilaahay ka bariyaa ama aan u duceynayaa dadkii ku dhintay Ilaahay naxariista janno ka waraabiyo waxaan marka xigta u tacsiyanayaa dadkaasi ka dhinteen oo guud ahaan noqon karaya dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka guud ahaan waayo waa dad ka dhintay Islaamka oo dhan ama dad Soomaaliyeed weeyaan runtiina waxay ahaayeen dad abriya ama dad aan dhibaato geysan dad aan dagaal ku jirin dad aan siyaasad shaqo ku lahayn dad runtii masaakiina oo u badan arday soo ogeydeen waxa dadka dhintay kamid ahaa arday dhan oo jaamacadda Banaadir dhiganaysay u badnaa laba kuliyadood oo engineering-ka iyo health science-ka u badnaa marka dhammaan Ilaahay u naxariisto dadka ka dhintayna samiriiman Allah ka siiyo waxa kale aan rabay bal inaan wax ka idhaaho dadka ka hadlay arrinkaas way kala duwanaayeen runtii waxa jiray dad ka hadlay arrinkaas oo uga hadlay qaab mucaarado kale asxaabta mucaaradka oo kale ama dadka dawladda dhaliilsan ama hadan Soomaalida kale ama hadan dadka xamar jooga ee madaxda xisbiyada hogaamiyaasha ka soo dhaliilan kale qof dhintay runtii in qofkii dhintay loo duceeyo ku ka dhintayna loo tacsiyeeyo dadkayna loo gurmado mooyaane wada kale oo ka furan oo la mari karaa ma jirto laakiin xarkay asxaabta mucaaradka ama dadka mucaaradka ee dawladda dhaliila oo le markay dadku u tacsiyenayaan dhex marinaya afkaartooda siyaasadeed oo ku eedeynay runtii ameen madaxweynaha amarta wasaaraha ama nabad sugidda kale inay arrinka ay sidii ay sameeyeen oo kale dad baa sameeyay weer runtii waxashnimo la argixisuha dawladdu kamay dambeeyeen dawladdu waxay meesha joogtaa dadka shacabka inay runtii badbaadiso ama dar yeesho ama waxanba ka ilaaliso ma aha inuu ninkii siyaasiga ahaa u sii dhex mariyo dawladdii u dhaliilsanaa dadka dhintay ama dhaawacan inuu runtii dadka ama u duceeyo dadkii dhintay kuwii laga dhintayna maxaa la dhahaa u tacsiyeeyo wuxuu qaban karana u qabto haday tahay daaweyn haday tahay ama caafimaad haday tahay wacyigelin haday tahay sida nimanka dhibta geystay looga hortagi lahaa ee runtii haboon sidoo kale waxaan lahaa dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida kale ah ama Soomaaliland ee meelaha kale jooga inaanay runtii wax qaar baad moodaa runtii inay aqligooda meel si ku cabiraan ma garanaya fikir ah inay u sii dhex mariyaan su'aal ahaan ku wiirsasho kale marka kulli waa dad kulli khaldamaan u arkaa way qof ka dhintay wiirsasho iyo wax kale kama mudna runtii duco mooyaan wax kale kama mudna marka runtii waxaan gartay inaan taxsiida la wadaago dadka Soomaaliyeed ee halka wax ku noqday Ilaahayna wax ka bariyaa inuu ku dhintay u naxariisto xiriirna ka waraabiyo ku dhaawacmayna Ilaahay u boogadhayo oo caafimaad degdeg ah siiyo dadka ka dhintayna samiriiman Ilaahay ka siiyo guud ahaan Soomaalida oo dhan wixii dambana runtii bal sidii ay dawladdan waxaan tab ku siin lahaa kulli Soomaaliya bal inay kulli waxa qorshahooda ugu weyn kamid ah marka qorshaha la sheegayo waxa qorshaha ugu weyn kamid ah ama 40% budgetkooda wax kamid ah inay ammaanka saaraan marka bal inay ammaanka xoojiyaan qaraxyada iyo dhibaatadana ay cilmi ka bartaan wax ka bartaan oo ay wixii dambe ay isaga ilaaliyaan Assalamu alaykum wa rahmatullahi bismillahir rahmanir rahim waxaan halkan maanta dhambaal tacsiya uga dirayaa dhammaan qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay 28 bishan Ex Control afkooye oo aan leeyahay Allah samiriiman idinka siiyo iyo iimaan saadiqa sidoo kale halkan iyagana waxaan uga ducaynaynaa dadkii ku dhaawacmay ee qaraxa ay dhibtu uga soo gaadhay waan leenahay Allah idinka boogadhayo sidoo kale waxaan halkan iyagana uga ducaynaynaa dadkii hantida iyo maalku uu kaga burburay waan leenahay wax ka fiican Allah idinku bedelo anagu kaliya waxaan awoodnay inaan u ducayno dhammaan Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waana Mukhtaar Cabdi Jaamac ah oo kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa dadkii xasuuqa lagu geystay Ex Control afkooye dadkii ay ka baxaan waxaan leeyahay alla samiriyo iimaan haydaga siiyo intii ku dhimatayna waxaan leeyahay alla jannadii firdawsa hageeyo intii ku dhaawacantayna alla hoo boogadhayo inta markan kaga yimaado dadkaas waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo Islaam ah oo jinsiyad ahaan iyo dhiig ahaan baan iswadaagno dad aad looga daqado runtii weeye waxay ahayd horta arrin la yaab ah xasuuq la yaab ah
in laga dhiidhiyo u baahan ummaduna inay damqato oo haddii islaamnimo la iskugu danqan waayo wax kaloo la iskugu danqanaya ma jira in la isu danqadaa qurux badan intaa markaan kaga imaado dadkan waxaan leeyahay waxa loo duceeyo ummadda islaamka meel kasta oo joogaan oo videogaygan aragtay inay dadka u duceeyaan duca ka bacdi waxaan kale ka hadli lahaa baraha bulshada arrimaha la isla dhex wareegayo يعني قار جيسيس كيهين قارنا سيد خلدان وحليان ولا القالي وحينو تعالى تعسي وحينو تعالى جيري وحينو تعالى أمد الحسوقي أو بغلال كبدن وحنا لا هاي أنت إنكم مشغولين شخصي يقفت هنا وحنا ران لها إن الأمد أنا دعاء وجوده مقرن ساي أنت لمتين ودعينه أنت دعوتين الله هو بقول يعني رهنا ما هاي الناس مشغولة أرن كوين أرن الشخص كوين dadka ku nool muqdishona waxaan leeyahay arrinkan waa arrin inaad meel uga soo wada jeestaan u baahan waa arrin inaad ka dhiidhidaan u baahan waa arrin inaad damqataan u baahan waa arrin dawlad shicib iyo siyaasi toonaan oo dhammaantiin idin wada yaala haddana anagu Soomaalida kala nahayna garab iyo gaashaanba waxaan u leenahay dadkayga islaamka ee Soomaalida ay isku dhiiganahay inaanu garab istaagno ummadda dhalinyarada ay ku dhaqan geeyiga Soomaalida waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan arrinkaas waa arrin meel in loogu soo wada jeesto u baahan marka waxaan leeyahay ummaddu midowga inay noqotaa qurux badan inay midowdaan qurux badan arrimaha noocaas inay ka dheedhedo meel ugu soo wada jeestaa qurux badan تفرارق إن لسه داعية قروح بدن الرماة جالس كان لسه داعية أنا وقروح بدن تهاي دمانتي نويد والسلام يا ملك استاذ جوتان نوحان الله يفتح هذا ولا مرة قف كستو فيديو جاي نعرف من فتح هذا ومرة تكون مدي ماشى على واحد سوقين فتح هذا ومرة الرماة نوكلنا وأرماة جود وأرماة مصيرية وأرماة ويا لدتك إسلام كاي لدتك الصومالي داودن أرن شخصي أرن شخصي معها أستاهلوا قاعدين ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته